waxa weeye war-saxaafadeedkii shalay ka soo baxay bulshada caalamka runtii waan soo dhaweynaynaa wax allo wixii macnaha beesha caalamka ee soomaaliya waxtar u ah laakiin annaga waxaan u aragnaa xoogaa macnaha mataqaan in waxyaabihii shuruuda annaga noo ahaa in xoogaa macnaha mataqaana lagu xadgudbahayo waxaan jeclay in arrintan annaga ay nagu ixtiraamaan beesha caalamka moshino kan ka hor waa laga geeyey maaragtay xukuumaddii oo qadari wasaarada maaragtay mataqaan moshina laga geeyey kana kii muu lamid yahay marka waxaanan aaminsana annagana xalisan karno marka waxaan doonaynaa annagoo beesha caalamka aana eedeyneynin oo runtii aan uga mahadcelinayno soomaaliya waxay u qabteen laakiin markay imaato arrimaha shuruucda arrimaha macnaha mataqaana madax banaanida arrimaha macnaha mataqaan baarlamaanka iyo garsoorka dalka markay timaado in annagu aan xalisan karno arrintaas marka waxaan jeclaan lahayn in laloo daayo annaga oo annagu aan noqono dad iyo dal dawlad xor oo waxooda macnaha ku xalista sharcigooda. waan gartay qofku wuxuu xor yahay marka wixiisa oo dhan isaga uu maamulanayo hadday noqoto dhaqaale siyaasad arrimo bulsho wax walba halkasay u eg tahay xitaa sidii aad dawladda u maamuleyseen weli waxaad kaga jirtaan tababaro iyo in laydin baro xirfadaha sida dawlad loo maamulo marka waxyaabaha ay ku doodaysay bulshada caalamka waxaa ka mid a inaan la dhisin hay-adihii dawladda ee qaban lahaa hawsha dawladnimo waxaana caddaatay in xilliyo isxigxiga in isqabsiga dawladdu uu wakti badan lumiyo bulshada caalamkana kharash badan baa ka gelaya arrinta soomaalida marka miyana u ekeen inaad doonaysaan wax aad u adag inaad heshaan horta arrintu hadday noqoto waan ida caawinaa macnaha mataqaana de wax walbana annaga maaragtay idin yeerinayna arrintaas waa laga qurux badan yahay annagu dhib uuna soo gaaray cid walba oo maaragtay mataqaana gacan hasiisana waan u mahadcelinaynaa laakiin mid ayadu lama yeeli karo ma noqon karto macnaha wax waliba macnaha oo soomaali ay maaragtay mataqaana maanta khusaysa waan maaragtay annaga idiin hagaajinayna waxaan rabaa inaan idiin sheego soomaaliya dawladda hadda dhalatay maaha 60kii ayaa maaragtay xorriyadda la qaatay shuruuc baa jirtay dawlad baa la ahaa way jirtay gaad macnaha muddadii dhexe dagaalada sokeeye way jiraan laakiin maanta dawlad madax banaan leh aan runtii xoogaa way iska jiraan macnaha wardarri way iska jirtaan laakiin shuruucdii dawladnimo hadday noqoto garsoorkii hadday noqoto xukuumaddii hadday noqoto golihii baarlamaanka way wada joogaan shuruuc la raacana oo nagu filanna hadda waan leenahay tusaale ahaan dastuurka kumeel gaarka wuxuu sheegayaa qodobka 139 wixii laga waayaa macnaha dastuurkan in loo noqon hayo dastuurkii 60kii hadda laftigeeda mooshinkan wixii laga waayaa sharci lambar 3 oo soo baxay 62 haddii madaxweynaha mooshin laga keeno qaabkii macnaha loo raaci lahaa raaci waa la hayaa marka waxa weeye annagu runtii waan ku filannahay shuruucda hadda aan haysano inaan ku xalisano dhibaatooyinkeena iyo broblemadeenna maxkamadduna way shaqaynaysaa waa maxkamaddii annagana dhaarisay madaxweynaha dhaarisay xukuumadda dhaarisay maxkamaddii way jirtaa wayna shaqaynaysaa marka waxaan ku kalsoonnay annagu dadkan u sheeganayo beesha caalamka inaan ku filan nahay inaan annagu xalino sidaan hore uga xalin jirnay broblemada annaga siyaasadeed waan gartan in yar dib u noqono arrinta keentay inaad mooshinkan keentaan waxaad dhowr mar ku sheegteen inay tahay musuq maasuq uu madaxweynuhu sameeyey haddaad dhegaystayaasha u caddaysid waxa uu musuq maasuqaas yahay arrinta aan horta madaxweynaha ku sameynay waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u caddeeyo maanta in mooshinkan uu tusinhayo ama u caddaynhayo in sharciga loo siman yahay ninka u sarreeya iyo qofka u hooseeya ee soomaaliyeed in la dacweyn karo lana qabsan karo asagana uu xaq u leeyahay inuu isdifaaci karo marka waa arrin hambalya waa arrin aan aragno guul inay tahay qof kasta madaxweynuhu u sarreeya weeye dalka asagoo sharaftiisa iyo xasaanadiisa aan lagu xadgudbaynin haddana waxay muujinaysaa in lagu soo oogi karo dunuub ama macnaha mataqaan waxyaaba oo maaragtay sharciga uu ka galay marka taas intaas weeye waxyaabaha lagu soo oogay madaxweynaha oo kusoo ognay ma aha macnaha musuqmaasuq keliya ma aha waxa weeye shuruucdii dalka qodobo kamida oo dastuuriya ayuu ku xadgudbay sidaa aragteenna 9 bej ayaan kusoo koobnay arrintaasna waa arrin laga soo baraandegay looyaro ay macna mataqaana soo diyaariyeen
muddo socotay waa arrin macnaha mataqaan cadaymahooda loo hayo hadday noqoto corruption hadday noqoto shuruuc la jebiyo oo sharci uu sameeyey madaxweynaha oo qodobka ugu horeeya oo ah inuu iska samaystay sharci annaga aana soo marin baarlamaanka oo uu dad ku toogan hayay hadday noqoto macnaha federalismkii oo runtii asna meel fog hadda kasii dhacaya marka corruption keliya ma aha. waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa kalsoonida aad ku qabtaan in mooshinkiinan uu shaqaynayo oo sida aad u doonaysaan uu u dhacayo. kalsooni badan baan ku qabnaa baarlamaanka soomaaliyeedna runtii waxa weye wuu bislaaday xilligan muddo maaragtay mataqaan arrimaha isqaqabsiga iyaana waa kusoo jirnay baarlamaanka waxaan aaminsannahay aqlabiyadiisa in arrintan ay wada qabaan waa suurtagal in xildhibaano qaarkood oo aan badnayn baan aaminsannahay inay arrintan kolley kasoo horjeeyaan waana arrinta dimuqraadiyadda waa sax weeye waan soo dhaweyneynaa annagu waxa weeye madaxweynaha inuu isdifaaco baarlamaanka arrintan cod la geliyo ayaanu macnaha asalkan u soconna taas ah haddii asagu markaas uu ku guulaysto waa madaxweynihii dalka waxa weeye waa maaragtay sharci ah ayuu macnaha mooshinkaanaga u jabay haddii macnaha mataqaan sida annagu aan u eedeynay ay ku dhacdana waxa weeye dee wixii aan rabnay baa maaragtay mataqaan fulahaya laakiin waxaan anagu rabnaa waxaan processkii sharciga ah in la mariyo arrintaa marka waxa weeye processkana hadda waa sugayna wayna bilaabatay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ay tahay in ay maanta gaartay arrin dimuqraadiyada oo madaxweynihii u sameeyey dalka iyo ninka u hooseeyaba sharciga lagu siman yahay cid walba macnaha mataqaan lagu soo karo